dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan talaadii shalay si gaar ah diyaarad ka baxday garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan ee magaalada muqdisho waxa ay kaga daabushay 200 oo dhalinyaro ah kuwaas oo la sheegay in loo qaaday magaalada Asmara waxa ay shalay gabaldhici gaareen magaalada Asmara waxaana xogtan oo la helay ay sheegaysaa in dhalinyaradan ay qayb ka yihiin 600 oo dhalinyaro ah oo dawladdu maalmahan ku ururinaysay dugsiga Shirbow dhalinyaradan waxaa loo qaaday dalka Eritrea waxaana si qarsoodi ah la sheegay in ay uga howlgali doonaan magaalada Muqdisho marka ay soo dhameystaan carbiska oo loo tababarayo ku shaqeynta sirdoonka iyo waliba dagaalgelinta ciidankan ayaa lagu bedeli doonaa ciidanka waran iyo gaashaan la yiraahdo waxaana tababarka dhalinyaradan lagu siinayo Eritrea uu yahay mid qarsoodiya taas oo meesha ka saari doonta ciidankan dhisan hadda ee howlgallada culus fuliye qubaro dhanka ammaanka oo arrimahan wax laga weydiiyay waxa ay sheegeen in arrintan ay ka dhalan karto halis weyn amniga dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waliba lagu burburinayo ciidan qaran oo dhisan sidaas oo kale dowladda federaalka ayaa hore ugu fashilantay ciidamo kumanaan ah oo loo qaaday magaalada Dooxa kuwaas oo hal bacaal lagu lisay laga dhigay iyada oona tiradii loo baahnaa aysan helin dowladda federaalka oo ay waxyaabo badan qaladaada dhaceen qaarkoodna dib loo soo celiyay kuwa kalena ay qadar isaga baxeen oo ay Yurub si aadeen sidaas oo kale dalka Turkiga dhalinyaro tababar loogu qaaday ayaa dhowr mar waxa ay ka baxsadeen iyaga oo xeriyihii ay joogeen kadib Giriiga u gudbay Yurubna sidaas kaga sii gudbay